أما تشيغان وحكشك أما مدحتوده وحكشكو إنا رقودنا يحردا دقن كان يلالينو معارضة دنبيا لغا مقل انتي يا هبر جعل مدحوينها هيسي هذا الكنو لو كما توري جيرين waxaan iga halkan soo mariyay bariga dhaweeyay madaxweynuhu xilka qabtay baan shaqada quraanu doonayna anagu waa moorganimada baan ku yiri wax aan ku faa'iidnay oo waxtar lahaa oo si fiican u shaqeysay kursiga baan doonayna dawladda inta kala qaata markiiba reer guuleed baa intii ka soo doonay reer sabatar kale ma soo doonin horta saaka moorganimadan soo raacayo anigu moorganimadan la socdaay reer Hargeysa ma kala yaxanaysaa jeef caaqil Rashiid Jambiro isaguna kamid ah baahda dhaqanka oo hadlay suldaanka uu talada u jeediyay boqor buurmadow ee cadda gude ayaa isagu sheegay inaan marnaba suldaanku joojinaynin waxa loogu yeedhay mucaaradada ee uu ku hayo xukuumadda waxaanu ku sababeeyay jeef caaqil Rashiid Jambir boqorka waxaan leeyahay mucaaradada Ahmed Ismaan gude yarayn maayo oo halka ay wado inuu kor hoosu dhigmay sababtana waan ku sheegay madaxweynaheena fasaxay oo aad ogtoo yiri 40 sanadood baan anigu mucaarid ahayo mucaaridnimo waxba ma yeesho marka mucaaridnimadaasi Ahmed wuxuu diiday ma jiro madaxweynaha hore u fasaxay in badan halkan fadhida fulaxantiisa ma mooga ay hoosta ka leeyihiin ama ay yiraahdaan ama ay aniga iyo in la mida u yaqaanaan inay yihiin fidmo walayaal laakiin mid baan idin sheegay ruuxda iyo nuurka yeelan kari maysan hadii ay nabadgelyo dartimaad intii hadalkiisa wada jeef caaqil Rashiid Jambir sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday saddex dhacdo oo sheegay in ka dhaceen degmada Celfeen taasi aan jirin cid ka hadasha ama wax ka qabatay aanu yeelanahay ilaahay baa iyo rasuulkiisa waxay ka dhigeen in iimaanka uu ka horeeyo amaanka ka horeeyo malaha meel imika ay dhibaato ka jirto waxa inoogu badan gobolka Sanaag ama dareenkeeda inuu sidoo waxba inoo kala qarsoona oo inuu nisognahay degmada Celfeen laba reer oo walaalaheena oo jufo hoos ah oo muddo sanado badan culaad ka jirtay ayaa taagan in badan baynu isku daynay dhamaanteen inaynu dhamayno culimo iyo caaqimo looma kala hadhin aad iyo aad baa looga hawlgalay dadku way ku amaanan yihiin may haqran si fiican bay dhaqankii dadka Soomaaliyeed uga hawlgaleen waa markii sanaad ee anigu aan tago waa markii sanaad in arinta tago dhacdooyinkii u dambeeyay saddexda ahaa haday shacbi tay iyo haday labada reer ka soo jeedaan tay iyo haday dhaqanka Soomaaliland tay iyo haday dawladtay saddex dhacdo imika ugu dambeeyay wali lama dhaqaaqin wali looma dhaqaaqin sababta ma garanayo waxaanu wada doonaynaa oo aynu ku sabsanaynaa amaan aan hello waxaan idinku buurinayaa arrintaasi waa nabar inagu yaala madax dhaqameedkan ayaa hadalkan isku weydaarsaday madal dhaqan oo meher oo ka dhacday magaalada Hargeysa Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa